lowga hadalhaynta magaalada Muqdisho ayaa inta badan ah mid salka ku haysa dhacdooyinka doorasho ee dalka ka hirgalay siyaasiyiinta aqoon-yahanada odayaasha dhaqanka bulshada inteedii kale waxa ay si guud iyo si gaar ahaaneed ay toosh ka ugu ifinayaan doorashada madaxweynaha oo la filayo in ay ka xiiso badan tahay tii gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo ay qaybtoodii hore ay ku soo baxeen Jawaari Muuday iyo Cawad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sanadkan dab yar shidaynin waxa uu damacsan yahay in xildhibaanada ay doortaan balse caqabadaha ugu badan ayaa ah sanadkan baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku soo biireen xubno cusub oo dhalinyaro ah kuwaas oo intoodii badan aan mowqifkoodii jihaysnayn waxa jira musharaxiin fara badan oo doonaya in ay la lagdamaan madaxweyne Xasan oo dhamaantoodaba u muuqda kuwa isku duwan oo dantu ay midaysay siyaasi Maxamed Cali Amiin oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in sanadkan doorashooyinka dalka ka dhacaya ay noqon doonaan kuwa ku saleysan Soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiye wax badan madaxweynayaal badan soo arkay laakiin maanta waxa la rabo hogaamiye oo dalkan ka sameeyay maxay kala dhibaatsan waxaan rajaynaa insha Allah taala in hogaamiyahaas la helo oo dalkan samata bixiyo ee aragti wanaagsan ku hogaamiyo ma filay in dhalinyarada musuqmaasuq soo doortay haddii ay jirtaan musuqmaasuq tirayar way sida aan filayo haddii ay jirtaan maanta waxa ka weyn haddii qofku uu mabda uu lacagta u dhiibay ay ahayd inuu wax ku qabto ee si kale ku sameeyay kara aysan jirin I don't think inay wax ka halaabayaan laakiin waxaan isleeyahay markan cadaalad xilliga ay shaqeynaysa la taageen yalkadeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hal ku dhiga musharaxnimadiisa waxa uu ka dhigay qabyaninkeeda ayaa dhameystira ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo lid ku ah Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu boorarkiisii ku xardhay xasilooni siyaasadeed inkastoo wax walba isbedeli karaan haddana saadaalaha ugu badan ee doorashooyinka madaxtinimo ee dalka ka dhici doona ayaa waxa ay tahay mid adag oo aan la saadaalin karin cid ku guuleysanaysa musharax Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ololihiisa siyaasadeed ka dhigay midnimada Soomaaliyeed isaga oo la hadlayay Star TV waxa uu sheegay inuu haysto kalsoonida shacabka waxa lagu tilmaamaa inaan murashaxii shacabka oo taageero badan ka haysto wax kale ma aha waxa weey waxaan rabaa inaan dowladnimada u keeno iyaguna ay qayb ka noqdaan haddii noqoto dhanka amniga iyo haddii noqoto inay dowladooda dhaqaaleystaan oo dhaqaalo iyo canshuur ay siiyaan Nasruddin Cabdirasaaq Iimaan oo shahaadadiisa koowaad ee jaamacadda ka diyaariyay cilmiga siyaasadda waxa uu sheegay in doorashadan madaxtinimo ee dalka ka dhici doonta maalmaha soo aadan la isla gaari doono dhowr wareeg isaga oo sabab uga dhigay tirada musharaxiinta iyo habka ay u kala miisaan culus yihiin doorashadu aad u adagtaa sanadkan sanadada kala la mid ahan sababta dhaaydo sanadkan doorashada wax ka qayb galay oo dad siyaasiyiin aad waaweyn talada dalkana hore wax badan oo soo qabtay isbedelo badan oo soo sameeyay sanadkan way ka adkaa doontaa sanadadii kale oo hore sababta dhaaydo sanadkan waa tartamay siyaasiyiin rugcadaaya dhowr wareegayna mari doontaa hal wareeg iyo laba wareeg kuma ka doonto haddana saadaal lagama bixi karo sababta dhaaydo aad u adagtahay saadaal haddii laga bixiyo waa wax aad u adag xilliyada ay doorashooyinka dhacayaan inta badan waxa ay saameyn muuqato ku yeelataa gaadiidleyda Axmed Cabdiraxmaan waxa uu haystaa khibrad 10 sano oo gaadiid wadis ah duruufaha soo wajaha xilliyada ay doorashooyinka dalka ka dhacayaan ayuu sharaxayaa doorashada dhacaysa iyo markii oo jidka la xiro dib oo saa'id aan ku qabnaa because jidka anaga la wada xirayaa jidka diiniga la xirana meelna la furmaayo dariiqa hiraya dariiquna dadka ma qaadiyo marka aad aan u dhibaatoonaa aad aan u rafaad badan ku qabnaa dhibaan ku qabnaa waxaan ka codsanaynaa dadka madaxda iyo dadka jiraay inay maalinkaas saas dhacdo culayska fudeeyaan oo noo naxariistaan dadka shacab hayanahay dadkoodii aan dadkii isu doorayaan anka waaye marka waxaan ka codsanaynaa inay noo fudeeyaan ay jidka markaas saas nayiilin markii doorashada dhacaysa aad aan ugu dhibaatoonaa waa rafaadnaa hal saac laba saac waxaan ku jiraynaa fayl dabayaaqada bishan Janaayo ee sanadan 2017 ayuu qorshuhu yahay in baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay go'aan ka gaaraan cid noqonaysa 4 sano ee soo socota madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Mustafa Isxaaq Xasan Toob Star TV Muqdisho.